بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الله سبحانه وتعالى wuxuu aayaddaa iyo aayado kale ee la mid ah, la macno ah, xambaarsan nafs almawduuc uu rabbi inoogu sheegay in shaydaanku cadow inoo yahay. mar haddii shaydaanku cadow uu yahana waxaynala gudboon inaan u tabaabshaysanno, aan u diyaar garowno sidii cadowgaa aanu isaga dhicin lahayn. habka cadowga loola dagaalamo, shaydaanka la isaga celiyana waa hab ay diintu markaa inoo sheegtay. cadowgaaga waa kan, habku kugula dagaalamayna waa sidan, adna sidaad isaga celin kartid waa sidan. mar haddii lagu yidhi, laguu sheega cadowga iyo jabahaadka uu kaa soo geli karo, inta ay yihiin, intay la eg yihiin iyo sida ay u tilmaaman yihiin, isla markaana gacanta laguu geliyay kaartadii aad ku dagaalgeli lahayd, oo lagu yidhi sida ugu sahlan ee cadowgan aad isaga dhicin kartid, ee meelaha ugu dhow uguna sahlan ee cadowga uu markiiba uu ka damqan karo oo laga jebin karo, waa sidan haddii lagu yidhi, adigii marka ku hortaal sidaa marka u difaaci lahayd. baabkan marka laga hadlayo bay waxay dhihi jireen salafu hadihi اlumma, intaynan u gudagelin shayطaan iyo madaakhishiisa, ba waxay dhihi jireen waxa ay ku magacaabaan mujaahadaة الnafs. mujaahadaة الnafs oo macnaheedu uu yahay nafsadda oo lala halgamo. maxaa yeelay shaydaan waxa uu ku soo gabadaa, shaydaan waxaa soo hogaamiya, shaydaan waxaa u sahla inuu si sahlan qofkii muslimka ah ugaga tambadiyo oo maankiisana si sahlan uu isu dhaafiyo, nafsadaada unbaa u sahasha. saa darteed ba waxay dhihi jireen nimankii hore ee lagu yiqiin tasawufka dhaftaa lahaa, ee fahamsanaa cibaadada waxa ay tahay, ee rabbulcaalamiin ku xirnaa, aanan ahayn dadka tasawufkooda khuraafada iyo bidacda marka uu ku dheehan yahay aanan ahayn, way fahmi jireen. waana mowduuc ahmiyadiisa leh oo runtii aad iyo aad aan ugaga gaabinay. waxaaba moodaaba madaakhil acdaa'i dadka keliya ee dadka bimacnaa bini aadamka sidii la isaga celin lahaa inaan mutafaniniin aan ku nahay, laakiin shay aanan nafaaruqin iyo khalqi intaa inagu lamaanan, duul intaa dagaal inugala jira oo shaytaan oo cawaanu ahna waxaad moodaa si inaan ugaga dhoohannahay oo aynan ku baraarugsanayn. ta weytan marka maanta aad tilmaamayna biidn illahi subxaana wa tacaala in dagaal lala galana, rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiid waxa uu ku yidhi: alaa ukhbirukum bilmu'min, war ba idinkaga warramaa mu'minka kanuu yahay. mu'min waxaa lagu magacaabaa buu rasuulka sala allahu calayh wasalam man aminahu nnaasu calaa amwaalihim wa anfusihim, ruuxa ay dadku ay ku aamineen ama ay kaga ammaan heleen maalkooda iyo nafafayaashooda. wاlmuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadih, muslimna waxaa lagu magacaabaa qofka ay dadku ay ka nabadgaleen afkiisa adinkiisa. wاlmujaahidu man jaahada nafsahu calىa طaacati اllah, mujaahidka dhabtaa laguu sheegayna waa qofka nafsadiisa halgan la gala, ee xakameeya, ku maquuniya sida ay ilaahay subxaana wa tacaala ugu dacayaysnaa lahayd, dacada ilaahayna markaa ku dabaala oo lugta u saara. wاlmuhaajiru man hajara alkhaطaaya wاdunuuba, muhaajirna waxaa lagu magacaabaa qofka dunuubta iyo gafafyaasha oo dhan xaggaa isaga weeciyo, isaga leexiyo, ilahi subxaana wa tacala keliya uga odooma. waa tanuu lahaa ibn اlbaطaal, jihaadka ugu weyn ee qofka uu galo, jihaadu اlmar'i nafsahu huwa aljihaad اlakmal. qofka inuu nafsadiisa ula jihaado, ee dagaal uu la galo, ee uu xakameeyo, ee uu ku sifoobo qolyihii allah subxaana wa tacala yidhi: وأma man khaafa maqaama rabbihi wanaha الnafsa can اlhawى faina اljannata hiya اlma'wa. qofka ka baqa rabbaalcaalamiin is hortaagiisa,
isla markaana nafsadiisa ka celiya hawadeedii waxay jeceshahay qofka ayaa waxaa lagu magacaabaa waa qofka la leeyahay fa ina aljannata hiya alma'wa jannada meesha uu geli doono muhiimadeeday marka leedahay culimmadu marka waxay leeyihiin si marka qofka intaynan gaarin marinada shaydaanka uu nafta usoo maro iyo sida sahlan ee u duursanay intaynan gaarin ka hor culimmadu waxay leeyihin jihaadka looga baahan yahay qof walbaba waa inuu 4 marxaladood soo maro 4taa marxaladood ee heerar ee kala duwan qofka hadduu gabo ee sheego hadduu garab maro oo ka weecdo way adag tahay inuu si sahlan nafsadiisa uga adkaado ciidankan dagaalka kula jira ee kuurka isku hayaan inuu si sahlan dhulka ugu lagday oo ku adkaanaysaa maraaxisha ay culimmadu ay sheegaan waxaa ka mid ah almarxala aluulaa horta qofka waa inuu barto umuur addiin maxaa yeelay meelaha aan ogaan doonna waxaa ka mid ah meesha ugu sahlan ee shaydaan uu naga soo gala waa jahliga kulamaa jahila almar'u biamri diinihi mar walba oo qofka uu jaahil uu ka noqdo umuura diinihi shaydaanku way sahlan tahay si sahlan inuu qofkii u tafo oo markaa qofkii si sahlan u turanturoodo way sahlan tahay kow inuu qofka barta diinkiisa almarxala athaniya markuu barta kadib diinkan la bartay wuxuu u baahan yahay in la howlgeliyo mufradaadku inay ahaadaan mufradaad manhajiya baxta oo meel ku qoran alfaad jawfaa laa taxtawi shayan inay iska noqoto kelimada meel soo mutaxan waxba aanan xambaarsanayn wax laga dhawaajiyo oo mantiqii iyo logici aanan ka duunayn inay noqoto maaha waa in howlgelin bay u baahanta aayad walbaba camal fal xadiid walbaba ku camal fal wailaa laa macnaa inuu qofka uu yidhaahdo waxaan fahamsanahay diin ilaahay alamr athalith xeerka saddexaad in uu dadka baro maxaa yeelay qofka kelmadda ku soo gasha markaad gudbisid waa marka rusuukha la helayo والراسخون في العلم ذا رب العالمين أو تلمامة قليها قمدو ذا علمك أي كسقناتي وعلمك وكداد دقي وقليها مركي كلمة أي فهمين هول قليات دتك بري الحالة الرابعة والمرحلة الرابعة يعني وحل لبها هي دتك إن دينت إله لو باقه فرقي بقول حيا مركز تعليم إيه الدعوة تعليمته وحيكون وجهنان كرتا أفر روح شر روح أو يجو runtii si gaara u tabaabashaysan oo u go'doomay in cilmiga taxsiilaan oo soo dhacsadaan في حين دعوة أنا يكون حرنين أن كلية قفك أوديارك كلية دعوة وقف كست أباهن إن باقى ديني سهلا مركا لو باهي ولا جارسيو ما شو دونا أرضنا نقول كده هكذا ولا هذا إلا جارسيو أما هذه كلمة هذا مصنوعة هالنقطة أما مرئية هالنقطة أما مكتوبة هالنقطة أما هلا مقل أما هلا أركا أما هلا قرأ أما قفك كان كل جاي سنة ديار هالنقطة كلمة هذه إنه مرحب بيسي أما بهدي ديبها وجرته هذه مهمكم معها وحا مهمة كلمة سيدة إلهي سبحانه وتعالى أسود الجي إنه أقد بيه أفرت مرحلة وقفك مركو مقاله وأفرت مرحلات وأنا أفرت جبهدود وقفك وكدق على مكره لأن هذه كرعدو جيسي وويرري كربو كجيمد هوسبو كجيمد ملكسو كجيمد سيدة شيطان بقول لي هاي لا احتنكن ذريته ملكسان أتجنانيا أو حن كجا إيمانيا من فوق وحن كجا إيمانيا عن يمينه وعن شمائله بدك يا بدح ملكسان كجا إيمانيا بقول لي لكن شيطان waxaa la sheegaa meel kasta markuu sheegay wuxuusan sheegin kor buusan sheegin baa la sheegaa maxaa yeelay adiga ilaahay subxaanahu wa ta'ala shaytaan markaa inama dhex geli karo walidaalika waxay sheegaan markii Abu Bakr radiyallahu anhu khilaafada ay ka dhamaatay ama khilaafadiisii markii ay gabagabada ay maraysay dardaarankii uu u sheegay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu dardaaranka wuxuu yiri niyahu waxaan kaaga digayaa min nafsika allati bayna janabayk nafsadan kugu lamaanan haddaad ka awood badid yaa cumaru waxaad tahay nin jihaadkii ku guulaystay nafsadaada haddii si sahlan iyada ay noocan ma ay kugu xambaarto wax khaldan waxaad tahay qof markaa la jebiyey oo dagaalkii markaa waxba markaa aanan ka soo hayn waa masalada markaa ugu muhiimsan waxay leeyihin marka ibn qayyim al-jawziyya masalada markuu ka hadlaya wuxuu leeyahay laa yakunu alcabdu rabbaaniyan ila bilmujaahada addoonka ilaahay ee la faray inuu gaaro darajatu rabbaaniyiin رباني waxa lagu magacaabaa qofka kulansaday cilmiga iyo amalka kulansaday darajada lama gaari karo lagumana gaari karo illa bil mujahada hal gan joogta ah oo kala go'aan lahayn dagaal joogta ah aan dib aanan u goran iyadoo meeshu marka qof walba front walba uu taagin ka dagaalamay mujahada u bal lagu gaari kara hadalka hadal u dhigma waxa tilmaam Abu Raghib Asbahani uu leeyahay cilmigan aan baranayno fakarku wax ka bedela laakiin mujahadadan u baahanna iyada muquunida shahwada buu leeyahay qofka shahwada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku lamaana جهاد كي يجلي جرين وحا كميدا مروها الله أحد السلف وحيري الله سبحانه وتعالى بان هرتاق نابيري مدة سنة هل سنة أيان سلاة الليل أتاق نابيري سنة كا سلاة الليل كأن أتاق نابيري مريه إيغا صوب بحي أن قرتي
waxaan nafcistay buu yidhi mirahaas in ka badan 20 sano hal sano oo ilaahay subxaana wa tacaala u hortaagnaa oo ilaahay isu bihiyey isku hortuuray isku jajabiyey dhigtay markiisa ilaahay subxaana wa tacaala u bandhigtay sanad buu intaa dadaalkaa muujiyey laakiin natiijada ka soo baxday miraha wuxuu guranayay nafcigoodana ku intifaacsanay in ka badan 20 sano soddon laba ragcadood aad tukatid laakiin bikhushuucin wa bikulli adaa'iha wax alla waxa labadaa ragcadood u baahan yahay kaamil markaad buuxisid labadaa ragcadood nafciga ka soo baxada arki doona nuurkooda habeen aad fariisatid oo laba ragca ilaahay subxaana wa tacaala aad tukatid iyadoo dadkuna ay hurdaan adiga un keliya ilaahay hortaagan nafcigeeda maalinteed arkaysaa subxaana allah walxamdu lilah tiro badan oo carabkaagu aanu ka daalin nafcigeeda adaa arkaya sadaqo xaaladda aad u baahan tahay ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لكن جابك انت قعنت درتو التراهد هلا سينك كان نفع جيد ودار كيسا وحا لغا يابا عملوا مرة إنو النقضة مركلي شيء إنا سميست لكن نفع جيد إنو النقضة نفع مركا أنا كلا قول لهين وأنا أرن مهمة دي سله مركو له الحسن البصري ما الدابة الجموح بأحوج إلى اللجام الشديد من نفسك سيدة دابة نفلي ذا بحثت كبضان أن لعلين كرين أي قبا هانتا إلا اللي جامو zimaamkeeda lagu dhago siday ugu baahan tahay waxa taa kaga baahi badan nafsadaada baahida ay u qabatay in la xakameeyo taasa ka daran buu leeyahay waana macna marka muhiimadiisa leh waana arimaha ay tilmaameen saxaabatu rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam mujaahadada marka iyada waxay iman kartaa hadii la helo saddex xaaladood alxaala alula waa maxay xubullaahi qalbiga in lagu noolaysiiyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka uu jecel yahay jacaylka ilaahay subxaanahu wa tacaala maaha in noocan ma uu noqdo mid afka laga sheegto وإلا واتنوا لها الإمام الشافعي إن المحب لما يحب مطيع قفك وجعلها وهو قانسية هدي أوامر الله جل وعلا أكتاد أي وين أكتها كلما الله سبحانه وتعالى هذا الكسوف فلو أد مرحبا يسيسي كلما أمر أوي ماذا أد هول قليدين أرنك أمرك حبي قاقو مركو حبي مركا لوبا هاي حبي ماها إنو قاره هيركي نمانكي نوعا ما حلاج إيو أو ما أركتي إيو قليه الدحلاني إيو قليه إنتي كنت رح تقين iyagaba isku arkaba in daatullah iyaga ay ku dhex jirto wahdatul wujuudi waxaan loo fadhiin incarnationka caabudey ma qoliyaha ka hadlameen waxaan ka hadlaynaa qoliyaha dadkii tasawufka dhabta fahamsana oo aan ka hadlaynaa midalan gabadhii iyadoo lahayd ilaytaka tarda wal anam waghdab ay ilaahay ma adigu kaliya raali iga noqotay adoomadaada oo dhan hay cariisnaan haday doonaan hadalada waxa kamida ida sahha minka alwudd falkullu hayyin وكل الذي فوق التراب تراب مربى هذا الرب أديك أدي جعلاتي وحي كاسو هري وح سهلا وي ما أنا أبو أبي يلب وح أرض دوشيد هذا وبعيد عيد نحن لقى مسوق هذا بلد يعني وقفك هير كان مركو جار حب الله وحو جار يا مركه فلك أسمينيس أو سمينيس إلهي كره الجري بني آدم كان عنه كو حساب سنين وإلا حديث تلميذي وحوها قفكي فعل سمايا إساقو أسميني بني آدم إنه كره الجليو إلهي سبحانه وتعالى وعروضا بني آدم كانوا وعروضان qofkii fal sameeya isaga u sameeyay inuu ilaahay ku raali geliyo ilaahayna raali buu ka noqdaa binaadamka raali buu ka noqdaa adoo shaqeynaya hadii lagu yiraahdo ma bixaysi salaada ama lagu yiraahdo waa jimco waa shaqeynaysa adin khudba ay ku taagan tahay laakiin aad tiraahdo Allah subhanahu wa ta'ala urdi ilaahayna raali geliya ee muhiimsan gabadha muslimadoo liira maradaada dhig oo tirma ilaahayna raali geliya ee muhiimsan war ma tukanaysi ilaahay baan raali gelin imtixaan jaamacada wuxuu doona ha noqdo qofku markuu soo dhaqaaqo ninkan bini aadamka markuu ku arkay inaad tahay saaxiib mabda oo diinkiisa ku dhagan uu ku arka waxay u badan tahay inuu raali ka noqdo ilaahay subhanahu wa ta'ala raali buu ka noqonaya laakiin marka tiisa aad hormarisid yaqdabu ar-rabb alayka wa yughdibu khalqahu alayk isagana uu ku caroonaya khalqigana uu kugu caroonayaan taana waa la arkay iyadoo malmuusa waa la arkay arrinka labaad wuxuu yahay ihyaa'u al-khawf min Allah fi an-nafs in baqdinta ilaahay nafsada lagu beero oo la noolaysiiyo baqdinta waxa laga yaabaa inay marka ay joogin laakiin waxay u baahan tahay amaamud bay u baahan tahay in la ahaysiiyo in la keeno la soo xaadiriyo iyadoo meesha ay joogin in marka la keeno arrinka saddexaadna wuxuu yahay xubbiga kan iyo khoofkan aan tilmaamayno ma noqon karaan wax misaali oo noocan ma howlgeli kara haddaan la helin quwwat al-irada wal azima qofka go'aankiisa haddaanu yani boqolkiiba boqol shayga haddaanu ka go'nayn go'aankaaga hadduusan meel ku oolin oo shayga aad ku fakartay haddaadan noocan ma aadan ku camal falaynin marka arrinka arrin uu qabanayo ama wax faa'iido leh oo meesha ka soo baxaya marka malaha طبعا وأرمها مهم كاه وأن أضبهنا مرك إن تلمانه نتيجة ندبد ما كتلماننا شيطان كهذا أن كهل لأنه شيطان ومحاطه شيطان
dad baa waxay u fahamsan yihiin jaraa'imta dhacaysa ayaa shaydaan lagu magacaabaa qaar baa waxay u fahamsan yihiin shaydaan wax wujuuda oo xaqiiqiya oo reality leh ma laakiin wax la sheego qaar baa waxay u fahamsan yihiin kullama qofka falxun uu sameeyo in isaga shaydaan lagu magacaabo laakiin xaqiiqdu waxay tahay shayaadiintu inay jinka ka mid yihiin waataan aaminsannahay oo markaa nusuustana marka ay ku dareysatay allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka waxa uu ku sheegay ina shayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwan aayadahaas aad bay u badan yihiin shaydaanka war cadow buu idin yahay idinkuna cadow ka dhigta waa meesha keliya qur-aanka aan ku hayno uu rabulcaalamiin leeyahy hebel waa cadowgaaga adigana cadow ka dhigo meesha keliya lagu hayo qof lagugu dirayo la leeyahy war iska celi qur-aanka meesha keliya aan ku hayno waa intaa keliya waadna ogaan doontaa maxaa cadow loo yidhi haddaad in yar u ku hurgashid ahdaafta shaydaanka uu leeyahay qur-aanka oo dhan markaad aqrid iyo nusuusta kama baxsana 5 hadaf kama baxsana aayad walba haddaad aqridid yoolka uu shaydaanka u ganayo iyo hadafka uu tiigsanayo shaydaan uuna rabo qof kasta ee aadamiya inuu ku xambaaro amaba uu aakhirka uu biyo shubto 5 arrimood kama baxsana aayaadka ilahay markaad aqrid xadiidka rasuulillahi sal alla alay wasalam hadafka wada shaydaan uu leeyahy wuxuu yahay inuu qofka halmaansiiyo xaqa ilaahay iyo xuska ilaahay hadafka ugu horeeya shaydaan hor yaal waa maxay inuu ku halmaansiiyo xuska ilaahay iyo xaqa ilaahay watana qur-aanka uu leeyahy wamaa ansaaniihu ila shayطaanu an adkura istaxwada calayhim ashayطaanu faansaahum dikra allah qolyaha waxaa ka awood badiyey oo ka gaalib noqday shayطaanoo kadibna wuxuu halmaansiiyey ilahi subxana wa tacala xuskiisa marka waxay leeyihin culimmada halmaan fara badan qofka isku arka shaydaan baa ku lamaana halmaan fara badan qofka markuu isku arko shaydaan baa ku lamaana walaalka dadka jinka ku tufi jiray markay arkaan dadka halmaanka badan waxay dhihi jireen qur-aanka ha loo badiyo dabcan waxaan dhowr jeer sheegay wadaad ay dhihi jireen doctor cali mushrif oo almadiina munawara mashhuur ka ah oo dadka qur-aanka ku aqriya nin baa wuxuu ka sheegtay wuxuu yidhi maalmahan oo dhan halmaan badan baa isku arkay meelaan ka bilaaba ma laha wax kasta waan halmaamaya kadib maalmaha ka mida qof xanuunsan buu kaxeeyo meesha aaday meesha markuu aaday albaabka markuu ka galaa sheekhii markuu kor ka arkay suu u soo socdo isagu ceega ku boobay marka dhulkuu la galo qur-aan aqris buu ninkan indhuhu marka inta isku qabtay uu afka wuxuu ka keenay ma aragtay waxaan caadi ahayn hunaa waxay leeyihiin kullamaa uu shaydaanku walidaalika arag dadka meelahan degan iyo dadka afrika degan isagoo ka fakaraya shilankiisa ka fakaraya cuntadu cuni lahaa xabado inta ay ku socdaan xusuustiisa 100% way buuxdaa maalintaad tiraahid bisha 7deedan $100 soo diray telefoonku soo taagay ma daahayo xitaa adna waxaa laga yaabaa in waxa hadda laguu sheego meesha ay kaga tagtidba buug xataa haddaad ku qartid buugaad ku qartaad weynaysaa maxaa keenay maxaa dhul waxaan joognaa shayaadiintu ku badan taho 24 sac maan keenay markaa ma joogo marka quluxiyada aqriskeeda hala badiyo iyo ma aragtay aayad kursiga taa waa hadafka ugu horeeya hadafka labaad wuxuu yahay shaydaanku wuxuu isku dayaa inuu isku diro bayna al-ibn wa abiih wiil iyo walad inuu isku diro nin iyo naagti inuu isku diro laba ruuxo xigaala inuu isku diro dadka xigtada inuu ka dhex shaqeeyo walidaalika jaraa'imta maanta ay tilmaamaan qolyaha sociology-ga markay dib u kacaan oo la baaro jaraa'imta ugu badan ee dhacda waxay ka dhex dhacdaa dadka xigtada ay ka dhex dhacdaa walidaalika shaydaan kullama jariimadu ay tahay mid khatarsan kullama uu shaydaanku raqbad gaara marka u leeyahay iyadan waxay ka mid tahay meelaha shaydaanku marka uu ka shaqeeyo arrinka kale ee saddexaad ee shaydaan uu ka shaqeeyo wuxuu yahay inuu murug iyo baqdin qalbigeena u geliyo haddaad isku aragtid murug fara badan walwal fara badan haddaad isku aragtid aad degi weydid haddaad isku aragtid baqdin fara badan oo caadi aanan ahayn oo akthar min al-luzuum ah oo intii loogu talagalay intaanan ahayn shaydaan baa jira meesha shaydaankuna jinku ka mid yahay walidaalika u fiirso xusniga fara badan ninka meeshan degan iyo ninka afrika degan isku mid maaha ninkan adoo waxaa ka samaysay ayan jirin oo muslim maantana weji buu leeyahay berina weji buu leeyahay isagoo ku garab baraya arkaysaa subax markuu soo kaco marmar qaarkiis waxaa arkaysaa adoo muudiya wax lagaa sameey aanan lahayn wejigaagu bedelan yahay adoo caraysan baa arkaysa waxa laga markii la gaaro duhurkii markii la gaaro inaad caadi noqotid baa laga yaabaa habeen guriga markaad tagtid adoon wejigaaga la fiirin karin baa guriga galaysaa markaa ka soo bixis waxa laga inaad faraxsan tahay islaantii waxaad ka samaysa aanan lahayn oo furka tuurataad arkaysa bataatiga basashi iyo ka xanaaqaysa waxaan macno lahayn nin waxaa arkaysa waddada maray xusniga fara badan maxaa dhul jinka ku badan yahay joogtaa saa darteed allah subxaana wa tacala markuu ka hadlay liyaxzuna aladiina aamanuu walaysa bidaarihim shay-a inama najwa min ashaytaan shaydaan bay ka timi shaydaanna wax kale maaha liyaxzuna aladiina aamanuu qiro kalena waxay liyuxzina aladiina aamanuu
ليحزن الذين إني مرقودان ليحزن إنه مرق أبوره الذين آمنوا وجديس وأنت مرك مرق فرب بدن قفك مركو إسكو أركي ول وحنا الله بهني وحنا الله بهني ما قفك حكى كيس أدي أدوين ولذلك أرج dadka meelahan jooga mushkilad yar ma xambaari karaan markii wuxuu ku leeyahay Allah hadlayla African waxa arkaysaa nin baa miis fadhiyo 10 qof baa la hadlaysa 10 ku u jawaabaya 10 problem baa loo keenay wada xalinay uu socdaa waa nin adag duruuf fara badan oo haysataa inta ku habsan inta markuu joogo wuxuu la yar sug uu kala halmaamaya inuu qoraal laga yaaba mushkilad yarna ma xambaari kara maxaa yeelay arday wuxuu jooga aanan caadi ahayn وهنا marka waa meesha loo baahan adkaartu marka aad u badato baqdintana waxa ka mid qof baa waxa arkaysaa يعني ضد وحا انت سو جرنا لو كان لغليه هبلا اما هبل وحو كبقى انه دنتو موت waxa la gelinay meelaha psychiatriga quraan baa lagu aqrinay maanta dhan murug fara badan iyo baqdin fara badan baa jirta taana hadaad isku aragto walaalka waxa arkay nin weyn oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala awoodaasi mugdi meel mugdi aan American ba arkaysa waagi horena meel kasto ka bixi jiray ninna kaaru saaray uu baqaya wuxuu ku leeyahay meel kale caadi ahayn حتى waxa laga yaabaa baqdintu say u socoto amana la maqlaa amana la dhageysanaya inta kabara ku jirta wala isdaba taagaya waxaan waa meelaha shaydaanka uu ka faa'iideysto qala Allah subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku leeyahay inma dhalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya fala takhafuun shaydaanku marka aadaadka u adeegsado waxa kamid inuu baqdin maanta kugu beero waxaan caadi yani waxa laga yaabaa meeshan marka ka tagtid maxaa kamerada u diiday meelaha kale aad tagtid meel walba wuxuu kale waa lagu jiraa jaakaduhu baaraya meel ka soo baaraya roogana laga baaro masjidkan caadi maaha meeshan wala isku xataa islaantada lagu adeegsan karaa buu leeyahay islaantii waxa laga inuu ka shakisan yahay haadihi waxay kamid tahay ahdaaf shaytaan marka adeegsado waxyaaba shaydaanka adeegsado waxa kamid ah hadafkiisa waxa kamid hadana inuu qofka gaalaysiyo yani waxaad arkaysaa adna qadiya oo min almusallamat wa badihiyat oo fi alislam waxyaabaha ugu sahlan waxa laga inuu shaki ka galo حال حديث رسولك صلى الله عليه وسلم وحيري شيطانك سؤالك ويدينيا سؤالي سوى حكم يقول لي هاي أرض يا أبور الله صمد يا أبور الله من خلقك أدي يا أبور الله الله يا أبوري هدو قفكم ماشى وجاره هذا فليستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إله ما كان قالوا ماشى يستاجوا ما الوصع راي مالها الباب ماشى هيستاجوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأتنا القرآن كله إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك وجدوا أصعد وامحي قالوا إنه كبير هذا هدي نوعا ما قال لماذا أين سهلين وأنا أركي صدقك أنك أنكم عن طبقة المثقفين وأن جامعة نوجو أكاديميشن صنوع بروفيسور هذا وحلقة يسوق الدين كي واحد بقى مثلا هذا إنه كبير هذا أرنك كم واحد مودا إن وقت يسيء لجوجرين إيو contemporary issue قال صو عن كرتماها إيو وحاونك سنة لهيد ودا دود إنه وحبنا كفير سدان إيو ما هذا ضد جمعه لقال المينا يا إيو ما هذا وحياه فربضن إنه ما أنت نكو أقريا لقيابه اسمه أوجا مالها إيو وح أوبرانيو ولذلك أنا حنوع من جري أفريقيا سوي ما أركي جري لله إن كان يوروب وحكوسة برتي نوعا ما ضدك لما هلا هل سندويج وبورصة قوتا جيس بوتاجي هاي وح السجن وبحثين أنا وح مودنا ضدك علمي بصوال علمي ما صوال أرض شيطان بوجوج شيطان كل حاجة وسوق الدين وح عصوبة مركب أوكان مالها أرنك شناد شياطين شيطان وهدف كله وام ضدك إنه قوي هدف كان لولا القرآن كانوا الشيغان سجارة أمينا حسنين وطن القرآن كله فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما آدم يا حواء وحا وسواس كبار شيطان وجدي سنة محاها هاي إن وحا الله وحي قرصان جركو إنه موجي عرضه مركا إنه موجي ولذلك هدفك أول وإنت هو إن ذاتك اللقاوية ولذلك وحا مهيب وحا عجيب وحا كميل إيضا أنك هالله حريات عامة oo la leeyahay hebel xarb u leeyahay wuxuu doonaa inuu sheego iyadoo laga hadlayo nin iyo naag inay waxay doonaan sameyn karaan iyadoo laga hadlayo laba nin waxay doonaan inay sameyn karaan iyadoo laga hadlayo laba naag waxay doonaan inay sameyn karaan wax kasta iyadoo laga hadlayo haddana markii mas'alada xijaab iyo astur iyo chastity laga hadlayo decency marka laga hadlayo astur laga hadlayo waxaad arkaysaa ninba ninka uu ka gaalnimo badan yahay inuusan shayga u dul qaadan karin gaal hadduu yahay iska badaa lama marin karo ninka annaga gaal raaca ahna مسلم كان مقع كأه لكن وحا وحنبارسيه وكبوحه متضلع أفكارتن قال لي ماذا مضل القادن كرد حجاب مضل القادن كرد عريقا سمانتا نفريا ما هقدوما كإنا صادية شان ما ماشي للجوار أسلوب كان أسلوب حضارية ماها مرضان لواتو ماشي للوغمة القليل وده دينا وحان إذي شيء لها إنا حوغا يار اسكون نقطان أو ما عرفت تفكر كم حيبا كبد دشان ماشي أدوكتان يعني هولا فربضان بكون قليل maxaa yeelay kullama curiga ninkan ma oga marka waa la saaran yahay shaydaan baa saaran ma oga marka wuxuu u baahan quluuxiye fara badan iyo kabti ibn taymiya wax ku tumi jiro u baahan yahay khasaa'is buu marka leeyahay shaydaanka oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiisiisa aan ka fahmin shaydaanka khasaa'istiisa waxa kamid
وإنتنا مداخيش إن نقول خصائص waxa ula jeedaa characteristics ama tilmaamooyin gaara ee shaydaanka uu gaar leeyahay ko waxa kamida cujbi buu leeyahay oo bimacna waa maxay inuu adiga ku geliyo inaad iscajabisid muuminiinta watan markii la canaantay waxa la ghazwat hunayn id a'jabatkum wa yawma hunayn id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat war xusuusta maalintii hunayn mar badidiina idin cajab gelisay waxbana ayay ka tarin muuminiinta maxaa meesha gaarsiiyay shaydaan baa meel sahlan u soo maray markaas ayaga dhan waxa la galiyay hawl aan loo fadin waxyaabaha shaydaan uu dadka ku beero waxa kamid ah kibir buu dadka ku beeraya walidaalka kibirka waxa laga yaabaa awoodaad adiga aadan lahayn inuu firaado awoodaas aad leedahay id qaala watan ulay wa qaala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas ma anta cid idinka adkaan kartaa bal idinka murqalle idinka cadadi cudud ba hadii loo bixi lahaaba intaba idinka haysta waxay kamid tahay waxyaabaha kibirka dadka uu ku beero shaydaan sifaadkiisa waxa kamid ah khasaa'ista uu leeyahay in marna uu weynaado marna uu yaraado sida dayaxa aad moodid kullama ilaahay aad xustin uu yaraada asqar shay buu noqdaa kullama xuska ilaahay aad ka hartidna wuu weynaada rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu sheegay waxyaabaha uu ku sheegay waxa kan rasuulka sallallahu alayhi wasallam marna wuu yimaadaa marka adin uu maqlana wuu ordaa walahu duraad isagoo marka wax sii daynaya marka adinka uu dhamaadana wuu soo laabtaa haddana marka aqimaada ay dhacdo baxaan haddana wuu soo laabtaa inta uu ka shaqeeyo hawl kale ma laha rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu kale ku tilmaamay يعني خصائص الشيطان ولا waxa kamida inuu maqalka xado inuu araga uu xado inuu fakarka uu xado waxa ula jeedaa markiiba inuu distraction qofka uu galiyo maankiisa meel kale u jeediyo ama aragiisa meel kale u jeediyo walaalka adoo salaad ku jira waxa arkaysaa adoon ugu talagelin adoo meel milicsada arkaysaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam bukhari aisha wuxuu yiri inma dhalika ikhtilasun yakhtalisu ash-shaytanu min salati ahadikum wa shaytan oo dafayo xadaya midkiin salaada uu ku jiro xadiis rasuulka sallallahu alayhi wasallam أضو صلاة كجرة ما أنك هذا مالك لا أذية أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا بود رسول صلى الله عليه وسلم والحصوصة يعركان حصوصه دكان كي حصوصه فاميلي كي حصوصه واحد كسر تكت حصوصه إلا أديك أن صلاة هذا حلقة يابا إن أدب صلاة دي إمامك مركي التحيات كلا أقرنا يضع فاتحة أقرنا سأر كيسا ويدع ذا أيضا فاتحة لو تاني التحيات أضع أقرنا يضع كيسا محل هول كلا تكون فلانتها وكان وحيابها اللي يقام بكمته وهكذا دوالي شيطان كمركب ماله ضد كسر قالوا حكمد دقدقة ومسألة أمهم سن أي موضوع عنه بحذي ماشى أمهم الحديث بقى وحاجرة تلمامة العجلة من الشيطان والتأني من الله دقدق الشيطان كي ماذا ترتيب قفك مركوز دقنان تفربضان إلى سبحانه وتعالى سكت ماذا حديث للي هو ابن عبد المهيمن بقى كجرة أو ورلا قشك شيء حديثك ويس السود وين علماء قاركود ومهم صفة مهمة رسولك صلى الله عليه وسلم وحياه تلمامه حكم ذنك السحابي يقول كل تلمام إن فيك خصلتين يحبهم الله ورهبلو إله سبحانه وتعالى وحكو باري لبا ضبعي رب العالمين آدي أدو جعليها وحكو باري دولقات فربضان إيو دقنان بالغو باري وحيوات دادك لغو أمانة كمتا دق وماله شيطان كو كسو قلو إلا قد دق ديق دادك مسلمين تا شيطان كماله دادك كسو قلو إلا قد دق دادك مال كودي إحوله هذا اللبابا وحي كمتا ماله شيطان كو كسو قلو in lagu degdego dadka acraadooda iyo qofka in laga abaaro meelaha uu ka damqanayo sharaftiisa waxay kamid tahay meelaha dadku dadku soo galay kamid in lagu degdego yaani noocan ma adoo meel intaad fariisata waxa arkaysaa kelmad aan ugu talagelin inay meesha maalinta isaga hadaaqdo oo dhawaaqdid marka soo baxday kadib maanka u imanaya waxaad arkaysaa islaanta wax macna lahayn inta isku qabsataan dalqada aad ku soo turtid oo nooc ma diidan ba tiraahid sheekhow qowl hal raadiyo qiil hal raadiyo waa degdeg yaani maxaa isbedelay daqiiqad ka horna maankaagu sibuu u sadgaraysnaa daqiiqad kadibna si kalaad noqotay adi hebla aad furtay waa hebladii waxaad ku furtay waxa laga weli inay meesha taagan yihiin maxaa keenay in hadda markaba isbedeshid maxaa la shaydaan baa ku xidhday waliyaalika rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu diray hadda ka hor alwaliid bin uqba waxa la yiri reer bani mustaliq ha ka soo qaado zakawaadkii iyo amwaashii ay bixin lahaayeen waliid bin mustaliq ibn uqba socda ayaa meesha markuu tagay reer bani mustaliq waxay arkeen alwaliid bin uqba oo soo socda nin saxaabi meesha ka yimid markiiba farxad darteed bay meeshii ay deganaan intay ka soo baxeen bay wuxuu u soo baxeen magaalada duleedkeeda iyagoo raba inay meesha si aad iyo aad u qurux badan u soo dhaweeyaan u marxabaysiyaan alwaliid bin mustaliq markiiba shaydaan baa dhagaha wax kaga afuufay oo wuxuu iska dhaadhiciyay dadkan soo socda waxay u yimid in ay ku dilaan isagoo aanan hubsan buu markiiba dib intuu kala firay buu rasuulka sallallahu alayhi wasallam ribood khaldan siiyay wuxuu yiri yaa rasuulallah reer bani mustaliq way gaaloobeen maanta kadibna talaabaha laga qaado laakiin rasuulka sallallahu alayhi wasallam degdega laguma ogeyn
markiiba wuxuu yidhi waa yahay arrinka wuxuu u baahan yahay in baaris fara badan buu u baahan yahay Khalid bin Walid oo ciidan watuu diro wuxuu yidhi baxa oo meesha aada warkan la soo sheegay Walid bin Uqba wuxuu u baahan yahay in si buuxda oo noocan ma loo fahmo inuu sax yahay inaanu saxayn balka dabagala wuu soo baxay marka Khalid bin Walid Khalid bin markuu meesha u yimid magaalada duleedkeeda uu soo istaagay dhowr nin oo raggii marka ugu firfircoonaa buu magacaabay wuxuu yidhi hoos u daadaga oo si intelligence ahaan oo wargurbin ahaan oo hab sireed ahaan buu wuxuu yidhi baxwa nimankan war igaga keen kadib markay meesha usoo degeen bay waxay arkeen dadkii oo tukanaya oo soomaya yani oo salaadooda wato la adimay arkeen kadib wuxuu yidhahdeen yaa Khalid dadkan waa dad muslimiina ma zaaluu mutamassikiina bilislam wa ta'alimi diintii islaamiga ahayd oo shalay ay yiraahdeen muslimiin baan nahay af ay qaateen wali way ku dhagan yihiin way tukanayaan hadalka markii la kadib buu Khalid bin Walid soo kala leexday uu soo wareegsaday rasuulka sallallahu alayhi wasallam buu yimid marka arrinka uu sheegay marka waxa soo degay ya ayuha alladhina aamanu in ja'akum fasiq binaba fatabayyanu mu'miniina hadinin fasiqi war idin la yimaado iska hubiya intaydan dad waxba aan galabsan oo waxba aanan geysan intaad khalad ka gali lahaydeen war iska hubsada waa taliye huna marka hadii rasuulullah sallallahu alayhi wasallam aanu arrinka aanu hubsadeen hadii Khalid Walidna aanu hubsadeen hadii arrinka sida aana loo jilciyo way sahlanaan lahayd dadka muslimiinta meesha jooga dhiigooda in la daadiyo huna fima yata'allaqu bid-dima wax alla wixii dhiiga la xiriira shaydaanku waa meesha ugu sahlan qofka markuu qaraga uu tuuro dadkuna meesha ay ku wada leedaan waxa laga yaabaa inuu yiraahdo si khalada ayaa dad loo xasuuqay si khalada ayaa dad loo dilay inta ka horeysa in laga fiirsado Usama ibn Zayd markii uu baxay waatay dagaal ay galeen kadib dagaalkii way ka adkaadeen qolihii ay dagaalka kula jireen isaga nin ansaariya soo haray waxay eriyadeen nin baxsaday bay eriyadeen ninkii bay dul yimideen marka dib ninku markuu arkay in gacanta lagu dhigay wuxuu yiri la ilaaha illa allah markuu yiri kadib kii ansaariga dib u gartay wuxuu nin la ilaaha illa allah yiri meel aanu raaca ma leh meesha isku istaagay markii Usama ibn Zayd baa wuxuu yiri markiiba intuu waranka qaatay uu dhex daray kadib uu dhintay ninkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam khabarka soo gaaray markaas ya Usama maxaad hadalka waxa u sameysay wuxuu ya rasuulallah ninkan markuu kalimatu la ilaaha illa allah uu lahaa waxa kale uma dhihin wuxuu rabay in dilka inuu ka badbaado markaas yiri ashaqaqta ma qalbigiisa dilaaciday oo aad ogaata waxa qalbigiisa ku jiro ya Usama sideed u dishay oo nafsadaada ay ku siisay qof la ilaaha illa allah maxaad waxa suuq u dishay ya markaas yiri Usama ibn Zayd ما زال يكررها رسولك صلى الله عليه وسلم دي سؤال عليه الا انا اسكير ليتك maxaa maalinta uu islaam weey maxaa mas'alada dimaa marka laga hadlayo shaydaanku meelaha dadku ka soo gala way dhiiga marka laga hadlayo in degdeg oo baahan in lagu degdega ma waana arrin marka mancidgeeda leh degdega iyadoo la diiday waxa dhacday nin lagu magacaabo Suhayl ibn Amr wuxuu ahaa nin gaala laakiin wuxuu ahaa nin aftahan ah khudbada iyo hadalka sheegay og nin wuxuu ahaa khatiib mufawwah nin dadka u khudbadeeyo oo khudbada kelmadda haleeli og buu ahaa aad iyo aad marka lebaq u ah oo hadalka aad iyo aad u qiin kadib ninkan wuxuu nafta u keenay muslimiintu nafta u keenay wuxuu bilaabay inuu mushrikiinta gubaabiyo oo muslimiinta ku soo diro in sahlanna maaha yani nooca ma qofka hadii uu khatiibna uu yahay mufawwahan uu hadalkan uu sheegay og waxa laga yaabaa kelmaddu rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiidka uu yiri inna min al-bayan la sihran hadalka oo la cadeyn qofku uu cadeyn yani aad iyo aad u cadeeyo sixirka kamid tahay qof kelmadda markii iimaankiisa doorinaysa markaas yiri ya rasuulallah idan li buu yiri fasax baan ku weydiisanaya ninkan Suhayl leeyahay labadiisa dhoolood inaan saara iyo ogolo buu yiri suusan dibdaba u khudbadan ila nin labadan ay ka maqan yihiin ta'ada iyo fa'ada iyo fa'ada iyo kulli makhaarito dhan ba isaga darsamaysa iyo ogolo buu rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ya Umar iska tartiibsa buu yiri la'allaha tasurruka yawman ma waxa laga yaabaa ilgaan maanta ku kacsan tahay maalin inay ku farax galiyaan iska sug waxa dhacday sanadkii 8 markii la gaariyo fatح Makka Suhayl dadkii islaamku kamid ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala islaam ku arzuqay rasuulka sallallahu alayhi wasallam markuu geeriyooday oo bassigii ama ridadii ay badatay dad fara badan oo muslimiinta kamid islaamka carabta kamid islaamka isaga laabteen dhowr magaalo mooyaan Makka iyo Madiina iyo meelo mooyaan dad fara badan islaamka markay ka gurteen wuxuu ninka inta istaagay meelaha khutab la istaagay oo dadka ku gubaabiya islaamka dad fara badan baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala sabab uga dhigay in islaamku soo noqdaan oo islaamkooda qabsadaan واللبدي دولود oo shalay u dhaaranay Umar ibn Khattab oo laha maanta aan siisiiba biinsa inta u qaato rasuulka sallallahu alayhi wasallam laha may ka joog la'allaha tasurruka yawman maanta waqtigeeda la gaar rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxyaabaha uu xeerinayo isu wax u miisaan wax sahlan ma mas'alat al-ajala degdeg markuu yimaado degdegna waxa lagu yaqaanaa badana
طبعا qofka wax badan aan ka fiirsan sidiisana doorna ma dhalo waana muhiim qofka inuu ka fiirsado kelimada marka uu leeyahay ama falka uu qaaday waxayna ka mid tahay madaakhil shaytaan meelaha shaydaanku ka soo galay ka mid tahay waliyadu billah shaydaanka wasaaishu adeegsada waxaa ka mid haddana al-istifzaaz qofka inuu fiijiyo bay dhihi jireen wastafziz man istatacta minhum bisawtik ku dhaqdhaqaaji markuu qofka muusiiq uu maqlo waxa laga ninka ugu khayrka badan cala aqal inuu isagoo madaxa ruxayo inuu is arko ama lugta ruxayo inuu is arko watan allah subxaana wa tacaala istafziz man istatacta minhum bisawtik qofkaad doontid ku fiijiso ku dhaqdhaqaaji sawtkaaga waxay ka mid tahay waxyaabaha u adeegsaday ka mid shaydaanka waxyaabaha u adeegsada waxaa ka mid almushaaraka shaydaanka waa nin aanan u baahnayn in la martiqaado isaga is martiqaadaya يعني وضيف بالدرجة الأولى VIP وما بهنا إنها تفضل ترى محل الله سبحانه وتعالى يري وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وحلو ذاكتا مال كودا إي أولاد دودا ولذلك قفك هدوصا لهن اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا مركو أهل كيس آذي شيطان جيس كيسو هوشي سكوتا هدي انتظر مركا دعوني سآذن بسم الله آذن لهن جيس كيسو كعونا هدي نوع وحكستو كسوغل هدانا بسم كآذن وقون وشاركوا في الأموال والأولاد haddii shaqada keligii lagu aamini waayo uu ku guulaysan waayo inuu adiga shaqadii kaa leexiyo geeskiisu ka qabanaya diyaar wuxuu u yahay inuu shariik noqdo kambanigaas inuu kusoo biiro wuxuuna inuusan seegin taasaa u muhiim arrinka kale oo shaydaanka uu caado u leeyahy waxaa ka mid a wax lagu magacaabo dabcan in uu mala aanan wanaagsanayn qalbigaaga marka uu soo geliyo waxaa laga yaabaa dadku iyagoo mu'miniin ay yihiin waxay iska geysteen iyo godob iyo dakana ay kala galeen ayaan jirin aanu jirin in waxa laga yaabaa mala yani jump conclusion inaad conclusion madaxaaga inaad istiraad hebel laba maalmood buu masjidkan soo galay uu dhaafayay ninkan waxa laga yaabaa howlo kala haysato waxaan sheegaynaa ku qufulan waa iska mashquulsan yahay adna markiiba aad tiraahdo wax kale damacsan maxaa saa la ii fiiriyay iyo hadalkaa marka lahaa dad kale loola jeeday iyo hadalkaa markuu wadaadka sheegaya group buu radinaya ma arkaysay howlahan oo dhan waxay ka mid tahay waxyaabaha Yurub kaliya lagu hayo dadka xagga jooga kelmadda doonta hadaa sheegto Allahu Akbar bay kuliyan ku camirayaan mushkilad ma leh laakiin wax kala qaada iyo wax kelmadda meel kale u sii wadwado oo wax kala boonbooniyo dadkeena meesha jooga waa jinkaana ugu badan qulwixiye far badan u baahan marka ilqaa'u suu dhanniga waa tan waxyaabaha la diido diintuna ay diido waswaas far badan walidaalka Allah subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku sheegay waa tan min sharri maxaa laga nabad galay alwaswasi alkhannas كان وسواسية الخناس اللي بلبلوغ قبشة بدن شيطانكم مركو وحي ليه إساقو سيدي إلهي أخلقي أو متحان هرت هذا ما أركيسي وكون موقني وكابحي وإلا شيطانك هدي من دقيقة دقوة الرئيس إلا دقيقة دقوة بدوك هرتاقنا وحلقين هذا يخلق الوكو ما كاقو مجوب لكن مربو حقليني وكابحي مر عباده كود ديني هذا وكسوق ليه صلاة markaad geshid ragcada kood waxa laga yaabaa inaad xoogaa indhaha inta isku qabatid hadaad wadaata iyaaka nacbudu iyaaka nastaciin aad si fiican u shidid hadana markii idina salaada mustaqim buu hadana u soo laabanay subhana rabbil azim markaa maraysa dul iska ka deena subhan meel uu taagan yahay marka waswaas wali kelimada luqada carabiga say u dhawaaqayso waswaas kelimada say u dhawaaqayso marka shaydaankan u shaqeynaa waxa kamid ah wax lagu magacaabo nazq ay culimadu dhihi jireen inuu ku xadxadiyo shak yar buu kugu beeray oo meesha aanan jirin walidaalka Allah markuu ka hadlay suurat al-a'raf wuxuu yiri إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ذلك مؤمنين تحل ويقان شيطان هذا وهي هابا يهدو ساء وتابتو هذا الآن الدين قلب قد وكسر رضو مركب وي اسقبتان وحين تذكروا إله سبحانه وتعالى الله تعالى وحسوستان فإذا هم مبصرون مركز عنده وكلا بحا لكن قليها كلا ولا له السماء الشياطين ترى الحرير يمدونهم في الغي شيطان ككتر احتقوا marka miirkooda ma joogo waatan ayadu macnahaas marka ay tilmaantay nasqigan uu jira fa ida waatan Allah aad uu leeyahay nazq min ash-shaytan haduu kugu yimaado fasta'id billahi wa ta'ala shaydaanka waxyaabaha uu sameeyo waxa kamid ah at-tazyin wuxuu ku qurxiyaa amalka xun wazayyana lahum ash-shaytan a'malan fasaddahum 'an as-sabil shaydaan baa wuxuu u qurxiyay amalkay sameeyeen wadadu ka leexiyay walidaalika waxay dhahaan ficil walba qofka uu sameeyo crime walba jariimo walba ee dhacda جريمة إنها جريمة تهاد بأفضل حنت وبشعة أنت أصلا قف كسمة شيء يقول لك قرحين قف إنا الدشيد ويقول لك قرحنت مركا أوجه رئيس مركا يديلك أقول عكدي وقفك وحركة يسوق مدح جدارك مدح كواهي لونك كواهي واحد أركي يسا زنا ذا أنت أوجه رئيس قفك لما علين كرو وبود يا لما علين كرو قفك زنا ذا والله سامعين لها عادي ما زنا ذا مركا كذا عاد كدي وحركة يسوق مدح حيست نوعا ما لعدة وكله حديتانك وكله قفك مركا مالك وقرحين markay dhacaan kadib uu sheegay xumaanay wazayna lahu shayga kan fi inta aan ficilkan aadan sameyn bay zinada fool xumay
dilku fool xuma daraagisku ay fool xumaay waxa kan markii way fool xumaay laakiin maxaa qurxiyay shaydaan baa qurxiyay wazayna lahum ash-shaytaanu a'maalahum wuxuu yiri Sheekh Abdulqaadir Jilaani kitaab uu leeyahay Al-Ghuniya ka magacaabo oo shaydaanka iyo kaga hadlay wuxuu leeyahay shaydaanka awlaad buu leeyahay magacyo kala duwan oo ku sheegay midka howlahan u qaabilsan tarab baa lagu magacaabo waxyaabaha qurxiya islaana waxba ahayn oo meel maraysa ayuu marna dhabarka ka fuulaa buu marna xabadka ka fuulaa si iyadoo dhan wax kale uu kaaga dhiga buu yiri waxay ka mid tahay waxyaabaha uu sheegay sheekha waxyaabaha uu shaydaanka uu ka shaqeeyo waxa kamid ah ad-dafc ila al-jidaal dood aan loo fadhiin inuu qofka marka uu galiyo طبعا مداخيشان ugu tagi doona باذن الله سبحانه وتعالى آيات القرآن ولا تتبعوا خطوات الشيطان آيات waxay ahayd wardadow raacina talaabooyinka shaydaan uu idin jeexayo iyo wadooyinka uu marayo warlugiina saareen aayad watan ahayd خطواتك قرآنka uu sheegay hadaad dib ugu laabatid خطواتkaas kama badna 7 ilaa 8 bay culimadu ku sheegaan خطواتك قرآنka uu sheegay 7 ilaa 8 ma dhaafaan saddex talaabana waa intaadan ficilka aadan sameyn saddex talaabana ficilka intaad ku guda jirtid talaab ama laba talaabana marka hawsha aad dhameeytid خطواتك shaydaanka uu sameeyo intaa ko amal baad rabtaa inaad gudatid shaydaanka ugu horeyn wuxuu kugu isku dayaa inuu horta caajis ka geliyo salaada in yar kadib bal xogaa fariiso caajis ma kici kartid caajiska waa soo dhaafta nooc ma biyaad isku shubto waa soo istaagtay markaas tiraahdo istaag buu hadana sarfi buu sameeyay waa ka leexinay hawl kale oo aan ku oolin buu madax ku gelinay nin martii oo aan u socon ama hawl kale adiga madaxa galaysa ama telefoon baa ku soo dhacay taa hadaad ku guuleysan waayo hadana taswiif buu ku leeyahay waayahay waqtigu dheer yahay salaatul leylka waxa la tukan karaa ilaa iyo inta la tukan karaa wadaadu waatan ay sheegi jireen sunnada hadii xataa ay ka tagto qabla al-fajr bacda al-fajr baa tukan kartaa adigu taswiif buu sameeyay taswiif waa maxay dib u dhigo saddexda talaabo haduu ku guuleysan waayo wuxuu baroosimaha dhiganayaa wuxuu kugu sugayaa asbaariis waxay taala fi athnaa al-amal marka amalka guuda jirta amalka marka guuda jirta saddex arrimood buu sameeyaa ko midka ugu horeysa waa maxay amalkii adoo ku guda jira oo bilaabay buu wuxuu isku dayaa adoo halfway maraya oo aadan dhameyn inaad ka tagtid wayna dhacdaa quraan baa la soo kala baxaysa gees baa fariisanaysa waxa arkaysaa juz adoo ay ku qarran tahay page markaa maraysid wuxuu ma aragtay inaad mobilka inaad ku falaadido hawl kale aad gashid waxa laga yaabaa amal kale aad u soo baxaysa halfway baa kaga tagaysa maxaa ku dhacay nimankii Uhud dagaalkii Uhud markii rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu yimid oo la yiri dagaal baa la gali doonaa nimankii oo mushrikiinta kacsan oo leh bal argosta dadku badar darsi daran baa ladin laqinay idinkuna argosta oo nin Sufyaan ibn Umayya orday Abdullah ibn Rabi' orday Ikrima ibn Jahl orday markii Abu Sufyaan intay u tagaan oo gees la soo abaabulay warkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam markuu soo gaaro la yiri ciidan baa soo socda rasuulka sallallahu alayhi wasallam markiiba majlis shuuruhu tala marka la hor fariisto yiri war maxaan sameeynaa dagaalka maxaan nimankan seen uga hartagna dadku laba ay u qaybsameen nimanka odayaashan waxay yiraahdeen meeshan u dhaafimeen haday noo yimaadaan meeshan ayagoo dhan ku qaramsanayna nimanka dhalinyarada waxay yiraahdeen da'huna nuqatilu meeshooda ugu tageena kadib waxa rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu soo kaxaysay ciidan kun gaare iyaguna waa 3,000 kunkii thuluth half $3 waxa la tagay ninka ibn Salol inta ka rasuulka sallallahu alayhi wasallam jihadka la soo aaday kadib rasuulka sallallahu alayhi markii wuxuu ku fakaray khutta marka macnaha military oo askari oo hore ana loo arkay markaas wuxuu yiri kontan nin Abdullah ibn Jubair madax ka wuxuu yiri meeshan ii istaaga buurtan bisheeda war hadaad aragtaan iyadoo leena lagday oo aad aragtaan iyadoo haadayna dul xoomarayso iyadoo hadaad aragtaan iyadoo hilibkeena saa loo jarjaran meeshina ka soo dhaqaaqeen meesha iyagoo taagan waa tan markiiba shaydaanka uu tusay in غنائمتي la urursanayo suuqa waxa la soo galiyay nin saxaabiya la dilay rasuulka la dilay kadib waxay yiraahdeen hadda غنائم baa la goranaya watan Allah wali minkum ma yuridu ad-dunya wa minkum ma yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhu liyabtalikum dadku isku niyad ma ahayn qalina adduunyo doon ba ahayn kuwana aakhiraadis ba ahayn kadib Ilaahay subhanahu wa ta'ala hiilka aad higsanaysay barab idinka wiciyo gacantiina laga tuuro waa shay waa gaari weeyday markii soo daadageen kadib Khalid Walid oo muslim ahayn waa tuusa u qoratay ducka jeexna sabi watan muslimiinta meesha lagu laayay amalkooda way dhameystiri kari lahayn hadaan shaydaan meesha soo gal lahayn watan awlamma asabatkum musiba qad asabtum mithlaha qultum anna hada qul huwa min indi anfusikum waruuxan idinka geystay naf shaydaan kullamaanan ba ahay darsi iyo waxyaabo kale aan jirin ba loo sameeyay amalka hafday kaga tageen shaydaan meel ka shaqeeya kamid maxaa maanta ku dhacay dadka muslimiinta ah amal khayr qaba noo socday kitaab ilaahay baan kor u siinay sunnata rasuulillah sallallahu alayhi wasallam baa la waday
waxa ka khayr badan oo meel ka sareyso la higsiday ma laha camalkii meeshii aan la gaarin waatan maanta content group aan sii marayn huna shaydaan meelaha uu istaaga way walidaalika meel kasta u fiiri nin kastoo baadil waxa laga yaabaa shuuciyada intaasay survivetay hanti wadaag uu socdo capitalism intuu survive arag ay mabda burjuwaasiya kan intuu survive arag uu soo jiray laakiin islaami ma yimid wax arkaysaa marka cabaar la wadaba waxaan u maleynaa keen inuu ugu dheeriyo 6 bilood shaqeeyay wax arkaysaa markiiba content firqa iyo aad arkaysaa maxaa yeelay kullama khayr la wado shaydaanku dagaalka jabahaadka uu ka galo ayaa jabahaadka khayrka baadilku shaqadiisa maaha uu la shaqeeyaa arrinka labaad ee shaydaan uu sameeyo fi athnaa al-amal ayaa wuxuu yahay camalkan aad sameynaysid hadduu inta tallaabooyin hadda aan soo sheegin uu ku guuleysan waayo wuxuu isku dayaa camalka inaad u gudatid hab aanan waafaqsanayn diinta aanan waafaqsanayn hab bidca ah salaadii adoo ku jiro badbadinaya salaadan lagu talagelin samic allah habuusan rasuulka u dhihin baad maanta dhan saad ku jiraysaa oo lagu talagelin wardi aan lagu dirsana maanta dhan aad la hortaagantahay meesha la fariisanaysaa bidca cid aan ku farin yani waxaad arkaysaa shay aan lagu talagelin sameeysa maalmaan lagu farin baa soomaysa la soo taagantahay salaadaan lagu talagelin dhikri aan lagu talagelin ilaahay baan xusay waad ku haysaa wax diinta lagu sheegana ma adaa wata jeebka aad ka wadata meel kale kula aadaya marka horena waxa ahayd intan un aqri ada ku dardarsanay meesha sidana ka faa'iideysanay shaydaan hadduu inta ku guuleysan waayo talaabta saddexaad fi athnaa al-amal sameeyo arriya istusbu ku gelinaya camalkaagu saxsan yahay waad ogtahay boqolkiiba boqol in salaadaadu toosan tahay ninka uu wadaadka salaada sida u tadbiiqinaya sifatu rasuul sallallahu alayhi wasallam sifatu salaati rasuul albani sida u tadbiiqinaya gacmaha marka meesha aad dhigaysid iyo lugaha meesha aad dhigaysid iyo sidii tiibu wuxuu gelinayaa riya inaad sameeyso walidaalika waa tan xadiidku ahaa qofka salaadu tukanaya si loo yiraahdo hebel salaada suu oga hal arko walidaalika shaydaanka markaas kale loo baahan yahay ikhlaasku qofku inuu la yimaado saddexda arimood markuu ku guuleysan waa hadana camalkii waad gudatay ilaahay baa ku waafajiyay kaam caajis kuma gelin laga ma leexin taswiif laguma gelin camalkii hafka gamaadan tagin sidii lagu talgalay u gudatay istusukaad ka badbaaday aakhirku wuxuu isku dayaa camalkii aad gudatay inuu ka dabato ومن قدران ومركو الله سبحانه وتعالى له يا أيها الذين آمنوا وتنالوا لا ولا تبطلوا أعمالكم عمل كينها بورنينا وأما عمل كإنه جرى ولا مو شيء عمل لقوتي إنه لكن هكذا بتجري سأل لو كذا بتجري كرا صدق الله بحذي مال بعد بحيث وشك شيء جيسا ما شيكته شيء كان كوين الله وكذا بتجري سا هبل با نوع عن نوعات سيسي وتكون بيسا وحلا ده هبل با أنا شالي يسوقه قاعد جدول كمركا حوت كوهيان أن صاد وقبلني حاجة صوت أنت صوتنا صوم برين هذا مركو قف نقضو أنك نقول كبري وشيك شيء سمعتنا وتنو الله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس سيدا حسميننا شيطان مركا مالكست آخر لحظة وامح عملك أدو قتي وكذب التقية واتن قرآن كيقول دول فربضا بالله لوحد وحبط عنهم ما كانوا يصنعون وحي سمينين بابري كلمة حبط لقد عربي وحلقوا مقعابا markii nafleeyda ay baqtido yani ay neef markuu baqtiyo kadibna uu bararo markuu aad u bararo markuu dilaaco oo uuska iyo wax kasta ay ka soo daataan ba xabada lagu macluumaad arag asalka meeshaas ka timid amal inta la isku aadinayay oo la qurxinayay oo muzakhraf laga dhigay oo inta la gaarsiiyay hal mar laga daba tagay amalkii markaas uu baabaa isagoo dhan shaydaan meelaha adeegsay kamid shaydaankan shaqada uu qabto iyo waqtiga time table ma leeyahay shaydaanka waqtiyana aan iska seexano haddaan seexano soo kaba nasan karno musiga markaan soo galno ma ka badbaadi kara shaydaanka wuxuu shaqeeyaa waqtiyana caadi ahayn maalintii shaydaanka wuxuu shaqeeyaa 24 saacadood habeenii maalin saacad ma nasto isbuuc wuxuu shaqeeyaa 168 saacadood bishii shaydaanka wuxuu shaqeeyaa 5040 saacadood sanadkii wuxuu shaqeeyaa 60480 saacadood waayo goor buu shaqeeyaa saacadahan ma overtime isku dardarsadaayo boqotiyada qaarkood ma isku geegeeyaa maya maalintan wuu shaqeeyaa habeenna wuu shaqeeyaa waayo haddaad ka seexatid hurdada kugu imaan adoo dhadhaba ayaad arkaysaa hurdada xataa markaad seexatid islaan aan lagu talagelin ku imanaysa ama waxaa laga yaabaa maanta dhan waxaa lagu talagelin iyo wasku jiidanaya iyo jinku maanta dhan waxba kala gelaysaa waayahay fi kulli axwaal haddaad istiraahad nooca ma waqtigii salaada la gaara saacadaad buuxsatay ama soo kacda saddex xarakado xarig buu wataa وحرق بكو حرحرية وتحديد كبخاري وتلمامي شيطانك وحكوا له نم عليك ليل طول ورني وساح هبين دار بكسوجي حرق كوات حرق اللبات حرق السدحات مركز الرسول صلى الله عليه وسلم هدو استاغو
oo ilaahay xus xarig baa furmaya hadduu weysaysto xarig baa furmaya hadduu tukado xarig baa furmaya hadduu intaa saddexda xarkood markuu kugu xiro oo meel ku fariisiyana xadiid watan uu leeyahay yabuulu fii udunayhi labada dhagood buu kaga kaadiyaa saa darteed qofku wuxuu soo toosayaa salaas wax isagoo aanan u kicin markuu soo toosan xadiidkii muxuu ahaa yaquumu khabiitha nafs iyadoo nafsadiisu aad iyo aad xuntuu soo toosaya haddiise uu istaago uu ilaahay xuso xarig uu furo uu weysaysto xarig uu furo uu tukado xarig uu furo oo dhagihii shaydaanka ku kaadiyey uu biyo saa u mariyo uu tukado wuxuu rasuulka sal alla alay wasalam طيب النفس isagoo nashiid ah watan qofka salaad الfajr markuu jamaaca ku tukada la yiri fi dhimati la ilaha ba ilaaliya shaydaan marka waa shaydaan inta jabhadood ka dagaalamay way ugu dambeeyna wuxuu ustaad wax lagu magacaabay al-ghiwaaya shaydaanka marka waxyaabaha uu adeegsado ama wasaa'il litaghalub ala shaytaan meesheeda ugu tagi doona biidin Allah subhanahu wa ta'ala laakiin wuxuu inta meelood hadda markaan fahamnay inta goor uu shaqada u hayo waxa jira marka wasaaisha u adeegsado marka ugu horeysa markuu rabo inuu soo galo shaydaan wuxuu maraa ilaa iyo 7 channel buu soo maraa 7 dhuumood buu soo maraa si aad ku soo gaaro ugu horeyn mesela midaal haddaan qabanno aan soo qaadano waxa laga yaabaa qofkii inuu xumi ku fakaro inuu zina sameeyo xumi qofka si uu sameeyo shaydaan intuu ku yimaado intuu ku kaxeeyo markiiba xumidii zinada kugu tuuri maayo ribaad rabtaa inaad samayso markiiba ribada ku gelin maayo laakiin waa maxay khatara خطر ومحي وشيء كروس مايندي ما كان يكسر دعيسا كورنا هذه ماشى المراجعة بس سؤال وقرص خطر دي ويسيس عنا يساوي وحنا نقنسها فكر بيبقى نقنسها مسألة عد مالنتي بعد نقاش تد أو ركتد طلعت صدحات ويسيس عنا يساوي وحنا نقني عزم قام بيكان نقنسها إن الرباضة عد قادة البنجي عد تكتد ما يو وحي نقنسها زينة صومة إسلامتا وين تكذب تكتد عزمه ويسيس عنا يصدق حنا هم مرق بيبقى كون نقانيس هدادا أوفين حاسلا هذا شيء كان آذن جودن ربادا بنجي كان بري هدادا ماشي فالك فون كان آذن بوحين أما وضن كان لقيرا هذا كبح عم المها كبريات هوس كوس إحدان يبريج كلا سحلا هو هم بيبقى كون نقاني أما ترى هداد زينة آذن قليل هم بيبقى كون نقاني مركي طلعت أفراد لمرة فالكي بقى إيماني مركي وسلك سيسترتبال فعل كاسمين سا فعل قوام حينك وحضر كيسا سوقاتي جاري سوقاتي ama guriga soo qaatay ama zinada ku dhacay inta markuu marayo falka markuu sameeyo waa 5 talaabood qofka aqliga badan inuu meesha ku istaaga laga yaabo haddana waxay noqonaysaa caadi noqonaysaa guri baa soo qaatay bariina waxa ku darsataa baabuurkii baawur baa soo qaatay doon baan u baahanaa Soomaaliya laga sheegay doon baan u baahanaa hadda oo riba way banaantahay bay kuleeyeen maxaa meeshan wadankan in la qabsado muwaadana loo baahan nooca ma zinadii maanta sameeyay bariba mid kale la raadiyay mid kale sharka hore waxa ahayd mid quruxdeedii cajabisay kaliya u muuqatay yani taas u muuqatay laakiin waxay noqonaysaa mid walba inuu ku jarribo wuxuu marayaa talaabtii lixaad buu marayaa shayga markuu caado u noqdo kadib haddana waxa imaanaya fusuuq ilaa xumida qofka markuu sameeyo fisqi buu gaaray darajada fisq markuu qofka uu gaaro mawduuci ma bilaabina 5 minutes baa wali madaakhil maana hadla darajada fisq buu gaaray fisq waa maxay inuu ka baxo daacada ilaahay waa fisq آخرka haddana wuxuu gaarayaa markuu faasiq uu noqdo inuu xaqaba la dagaalamo waa maxay isagoo doodeed arkaysa sheekh see lagu noolaanay riba la'aan wadankan macquul ma ahan darajada wuxuu gaarayaa maxay muwaajahada xaq isagoo u doodeed arkaysa zinada maxaa diiday dumarka in la qaawo insaan la sameeyo ikhtilaadka isagoo dooday mas'aladii shalay khadra kaliya ahayd isagoo walwalsan sameeyay waxaad arkaysa isagoo doodaya مثقفة برلمان هذا كشيء meelaha meesha la isugu yimaado wax qorqoraya oo u doodeed arkaysa todobada arrimood marka uu sameeyo ee fal iska yimaada hakada ma jiro طبعا مداخيشي هدان guda galeyna ma iska joojinaa hadii waqtiga dhamaado wala nuwaasil مداخيشي هدان galeyna مداخيشي waa soo koobaya باذن الله سبحانه وتعالى maadaama waqtiga uu dhamaaday طبعا مراحيشي baan ka boodaya باذن الله سبحانه وتعالى مداخيشي waxa kamid ah koow inuu shaydaan isku diro dadka muslimiinta حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم وريوحها إن إبليس حديث كلامها إن الشيطان قد يئس أن يعبده الصالحون وكقوستي إني دتك صالحين تعبدان معقول ما أنت إني جروب أنت يصاب حيرانا شيطان بن عبدين إله كدجانين معقول ما ولكن يسعى بينهم في التحريش حديث وكا لكن اسكو دردره ويسهل أنت إن الشيطان صنم مال إنتان استغنان عبدنا نقدنا إله كدجان نجسوا توبيس والعياذ بالله لكن إنه dhagta wax noogu sheego aan isku kacno oo group oo marka uu noo baandeeyo
qolada kale ay kusoo duusha u sahlanta taa waa meesha madqalka ugu horeeya oo rasuulka sala allahu alayh wasalam uu sheegay waan dul maraya sharaxaad fara badan maaha maxaa walaalka rasuulka sal alla alay wasalam waa tan uu yidhi maruu isagoo ictikaafsan masjidka markuu ka soo baxay maxaa shaydaanka meel kasuu gelaya taxriiska awooddu ku leeyahay waxaa ka mid a shaydaanka meelaha marinada uu maraa ayaa waxaa lagu sheegay marinada dhiigga ay maraan buu shaydaanku maraa ina shayطaana yajrii min ibni aadama majra dam shaydaan wuxuu ka maraa aadamka bini aadamka wuxuu ka maraa marinada dhiigga meeshay maraan buu maraa saliskaas buu dhex maraya shaydaanka isagii unugyadii baa isla mid meeshaasuu maraya saa darteed buu rasuulka sal alla alayh wasalam isagoo meel la taagan zaynab baa laba nin oo saxaabi ansaariya soo mareen kadib baa noocan ma markay arkeen rasuulka sal alla alayh wasalam humaag meel mugdiya islaan la taagan markaas noocan ma way gudbeen way degdegeen rasuulka yidhi calaa rislikuma inaha safiya war tartiibsada waa heble markaas yaa rasuul allah annaga kaa shakinayna yaa rasuul allah wuxuu yidhi laa ina shayطaana yajrii min ibni aadam majra dam meeshaasoo ka maraa buyi riwaayaad kale waxay tilmaamaysaa wadayiquu majaariihi biljuuc marba haddii marinadiisu ay sidaa yihiin marinada shaydaanka yareeya oo ciriiri geliya idinkoo gaajo isku dilaya bimacnaa soonka badiya wey marka waxaa la ogaadaa soonka inuu ka mid yahay wasiilo wasaaisha shaydaanka looga hortagay inay ka mid tahay xadiidka rasuulka sala allahu alayh wasalam marka uu tilmaamay inuu dhiiggaa marana waxaa muujinaya laba nin oo saxaabiya markay intay isku xanaaqeen baa markay is afdhaafeen baa mid ka mida noocan ma intuu kelmaddii aad iyo aad u adkaysan waayey ayuu holbowayaashiisa saa usoo kiceen isagoo aad iyo aad u caraysan baa rasuulka sal alla alay wasalam wuxuu innii la aclamu kalimatan low qaalaha la dahaba canhu ma bihi waxaan ogahay kelmad ninkan hadduu ku dhawaaqi lahaa waxa uu dareemayo ay dayn lahaayeen markaasa rasuulka sal alla alay slam wuxuu ku leeyahay kelmaddaa dheh markaasuu yidhi abiya junuun war ma anaa waalan yani waxaa fahmaysa acuudu billahi min ashaytan rajim waxyaabaha shaydanka lagu celiya ka mid shaydaan waxyaabaha uu adeegsada waxaa ka mid a tasyiin albidca bidca lagu qurxinaya shay qaldan maanta haddaad aragtay nin baa waxaa arkaysa la soo taagan leh war xadiidan mawduuca dadka aad ku qufaysid ka daa markaad tiraad ama tir war xadiidan beenta dadka u sheegaysa ka daa war diinteenna waxaan haynaa intaasoo fadaa'il oo aayaad iyo xadiid toosan baa lahay wuxuu ku leeyahy maxaa diiday sidii qolyihii karaamiyiinta laga sheegi jiray naxnu nakdib lirasuuli illah walaa nakdib calaa rasuulillah annaga rasuulkaan been u sheegaynaa kalaamo advertisement iyo dacayad baan u samaynaa lakin rasuul ku been abuuran mayno marka xadiid beena waa la samayn karaa bidcadaadi shaydaanka u qurxiyo nin baa waxaad arkaysa 24 saac la soo tagaa shay khaldan war waxaan way khaldan wuxuu ku leeyahay maxaa diiday waxa arrinka lagu baabi'iyay diinka dabcan shaydaanka waxyaabaha uu sameynaya waxaa ka mid a meelaha uu ka soo gala waxaa ka mid a camal buu wuxuu siinayaa qofkii bini aadamka isagoon aan ogeyn buu buunbuuninayaa iyadoo acmaal kalena meesha ay taal ama ha noqdo qofkii fardiga ama qof kale waxaa laga yaabaa inuu qofka qofba wuxuu la soo taagan yahay aham shay soo lama dhihina macnaheedu biniyata anniya tayiba niyadaada inay wanaagsantahay inaad muslim dhaba tahay qalbigaaga gaa muhiim salaaduu ka tegaya soonku ku tumanaya khayraadka dhan buu ku tumanaya xile muhiim ah waxaa muhiima maxay anniya qaar bay waxay leeyihin may assalaa baa muhiima sigaarka iyo jaadkana uma xisaabsan wuxuu leeyahay assalaa huwa almuhiim shaydaanka marka muxuu sameynaya markuu ku guulaysan waayo camal buu wuxuu yudakhim on the expense of the other kan kale si markaa meesha ugaga baxo calaa mustawa aljamaca waxaa ka mid waxaad arkaysaa maanta dhan waxaa laga yaabaa inay hal meel uu noogaga dhigta un keliya oo waxyaaba fara badan leeyahay wactasimuu bixabla dhammaantiin isku urursanaada isku duubnaada waayo calaa xisaab alcaqiida maaha in ani nin raafidiya oo aaminsan in ma aragtay nimanka ay ku magacaabaan aimada shiicada inay qeybka la socdaan in anigu miis la soo fariis diyaar u mahay nin Abu Bakr iyo Umar lacnaday inaan aniga meel la fariista maaha yani in la yiraahdo wactasimu baa la yiri war kow ala xisaab alcaqiida maaha masaladii maanta aan ka soo dhawaajino waxyaabaha uu shaydaan uu meelaha ka soo gala waxaa ka mid ah masalada taswiif beri baa samayn doonta hadda aan tilmaanay waxaa kaloo ka mid ah inuu shaydaan uu kugu afuufo ku yiraahdo niyahu yaaba kaa fiican waxay ka mid tahay masalada waxaa ka mid ah masalada al-ijaab waan dul maraya maadaama waqtigu u dhamaaday waxaa ka mid ah inuu kaa badbadiyo ku yiraahdo waa tawaaduc fara badan ha ku galo tawaaduc baa loo baahay markaas waxaa ka gaabinaysa howlo fara badan oo ilaahay kuu dirsaday waxa laga inuu ilaahay laba kitaab ku baray ummadan aad ugu tari lahayd inaad tiraahdo may tawaaduc baa loo baahay in la iswaala ma ahano culimo fara badan baa joogto wax sheegaysa meesha alla fariisatid labada kelmadoodna ay tirtiranto adoo maaha iyo murti sheegay mooyaan ayad xadiis oo dhan way ka tageen markuu ugu dambeeyay wax aad haysid male waana ku badan tahay arrinkaasna waa ku badan yahay dadka shabaabka dhalinyarada wax soo bartay ee wadanka markay joogeen madaarista hay khayraadka sheegi jiray meesha markay yimideen waxa moodaa nabil fatx majiidkii bulug maraanku soo bartay meel buu la fariisay wadaada kale wax sheegay loo daayay tawaaduc ka maaha ihtiqaarna ma ka waa meelaha shaydaanku ka soo galay muhiimad baa ku saaran oo ilaahay subhanahu wa ta'ala marka uu kugu kalifay tashkiik baa kamid shaydaanka inuu shaki ka galiyo waxaa far badan inaad ka shakidid salaadaadu ma afar bay maray ma saddex bay maraysaa war ma xiratay
والشهادتين كسيد الربي موجود واقضي رسول كما كصلي ما أنت ما شك وحركة سقف نويت أصلي ذا أنا أحرم من مركو كوا بيدعى لقوم مشغولي بيدعى لي بهذا شكل سيجري ولا بطعم كجرا قف كاس يعني كو يسوق بيدعى كجرا نويت ذي له أيها هذا نويت سيجري نويت كيسي شكي دي كده لا يعني والله بقرر موضة لو بروبلم بقى سوق تجي أما حلقة إنه صلاة ده أحرم ويدا نبى واحد عارك يسا الله أكبر الله أكبر صلاة دي إمامك مركو كفارقه يكذب حركة يسا صلاة دي يسوق حرانة وحكم تعملها أو سوق لي شكي جاء مركو بطيء وسواسك ابن القيم وحوة المام كتابه وتلبيس الإبليس وحوة الله وامد هدي وضاب ويهانا هلو جوريو هدو حاس لي يهانا كم قنت هلو راديو بدنا محايلة شكي وسواسك وحوة كبدنا دتك ضوابك وكبدنا يعني حمامكو جليا بياكو صفانين ابو ليمان قدر وتكنيا شكي بو جليا دد waxaa arkaysaa noo sheegay kula salaada ma xiran karo ilaa waqtiga maghrib kan waqti aad iyo aad u yar ilaa maghribka u dhamaado salaada ma ku celcelinaya waa tukanaya ku celinaya salaada uma xirmayso hadii loo guuriyo uu nafisaya bi ibn al-qayyim al-jawziyya wa masala runtii muhiimadeeda leh inta marka wa madakhish shaytaan waxyaabaha ugu weyn ee shaydaan runtii si sahlan ee uu dadka runtii وقال تخلص كان واحد كمان الجهل ولذلك مركز اللي ويدي أحد السلف وحلي المحا وقدر مركز سيري ما عصي الله بذنب أقبح من الجهل هذا كهر بيري ذنب إلهي لقى قالي أو كون جهل مجرى بيري مركز سوى حل ويدي هدنا هل هناك ذنب أكبر من الجهل مجرى ذنب كون جهلك مركز سيري الجهل بالجهل قفك إنه جاهل يا إنه كجاهل نقض ذنب كون ملهبي يعني الجهل واتني مناطق إيديه جرين منطقيين إيديه جرين جهل والله جهل بسيط وجهل مركب جهل بسيط قفك إنه جاهل هو أجهل لكن علمي كم مقن لكن جهل مركب وامح إنه جاهل هو كجاهل وتنول فإن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم منك وتنكو جبي يعني ولب كذا لا إن لقعد أدعين كري إن وحن نوعا ما سيكو يقول لا قيهن آدم فهم سنين إذا جهل ويقفل وحيابها شيطانك وسيسه لندتك وصل قال وحكم ذا إنه قفك هودي سمانتا وراعه هودنا إله بين نقطة وأنا دب كذا لا أما قفك وكله هذا وحيابها شيطانك وملاقيه دوّدوا محيتها مرك دوّدوا حين دخل الإيمان بالله كو دوّدوا حيتها العلم الشرعي اللبو دوّدوا حيتها الإخلاص في الدين أفر دوّدوا حيتها ذكر الله جل وعلا هذان دي بقول الله تمرك الإيمان بالله جل وعلا إن إله للرمايو لا تلصارته إيمان مرك الله إله يسجى وكيل في سورة الحجر إنه ليس له يسجى وكيل في سورة النحل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون شيطان أود وما لها وكضوف صدى وكمرا هبابيو ذاتك مؤمنين تأ وعلى ربهم يتوكلون إلهي كليه كحرا الحالة الوحيدة والسلاح الوحيد هبك كليه أنك أن كبت باذكرنا الحالات كليه أن كبت باذك وإيمان كمرك الله إيمان كان كهل لنا وكيد بتاعه الأمر الثاني طلب العلم الشرعي علمي الله برتار تقف إنه يفهم له كاسو قليل مع هذا وتل يري ما عصي الله بذنب أقبح من الجهل الجهل بالجهل بأقول مرك قفك إنه يفهم هرتمد ولذلك مرك أدرس كتبتي كهل ليس مثل ابن القيم كتبتي سأد مثلا وغير الله هذا نقول تلبيس إبليس كتبتي كلام مدارج السالكين أقري كتبت بين إياك نعبد أقري إياك نستعين أقري كتبت كلا كجهل العلماء وتفهم يسا دي من دابيض والشيطان كبرك عدد كل دقيقة وحكى له لقبت بعد مسألة الإخلاص وتنو الله إليه إلا عبادك منهم المخلصين أنت أمك بدبادك قال لها عبادة أذيك كوب احترام أو حكى أنا كلهن كوان ويبدبادين إخلاص كانوا مسألة أمهم سن أو درس جارة كلية أباهن مركين لقى هلا وتنو إليه عمر بن الخطاب هذا الكيس المشهور كاد أكتين حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وردوا حساب أنت إلى حساب كهر وزنوها قبل أن توزنوا ميزان أنت إلى الميزان كهر فإنه أهون عليكم غدا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم ما أنت إذين فضل بير أنت بريئا لجارن مركب مسألة أقومهم سواتا ذكر الله إله سبحانه وتعالى الله حسك إلهي إذا الضجال لوجره أيها الإلهي حس إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا ضجال بالوجره iyadoo leeyahay salaada musaafirka la gaabiyay musaafir hadaa tahay oo leeyahay noocan ma oo leeyahay qofku uu afuri kara ayaa waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala xus waxayna leeyihiin xuska wuxuu daliil u yahay inta Ilaahay subhanahu wa ta'ala jecesha hadaa rabtay inaad ogaatay in Ilaahay jecesha inaadan jeclayn waxa la xisaabtanta carabkaaga waxay leeyihiin hadii dhari dabka la saaro
wax alla wixii dherigaa ku jira waxaa wax looga soo qaadi karaa waxa la dhex geliyo ama qaadaha noqoto waxaad kaga soo qaadi lahayd qofka kan qalbigiisa inuu xubullahi ka buuxana waxaa muujinaya carabka ayaa maqaariftii wax lagu soo dafi lahaa isagaa qaadadii iyo kala carabkaana wuxuu la soo baxay waxay dherigaa ku jira maxabatullahi maantana subxaana allah walxamdu lilah walaa ila afkaaga ka bixi mayso waradban walaa yazaalu lisaanuka radban bidikri illah carabkaagu mar walba ha qoyanaado adoo ilahi subxana wa taala xusay xuska ilaahay waa xaaladaha xitaa akhtar alxaalaat axrajiha marka la marayo waynuusa qofka aanu halmaamin walidaalika in aad ilaahay aad xustid xaaladba xaaladay kaaga daran tahay dil waxay tahay inaad ilaahay subxana wa taala jeceshahay nin baa naag jeclaa markaasu wuxuu yidhi inuu wuxuu rabaa u muujiyo inta ay gabadhaasu ku weyn tahay markaasu tadakartuki warimaaxu calaya nawaahilu waxaan ku xusuusta buu yidhi iyadoo warmuhu saa igu dul hoobanayaan baa ku xusuusta buu dagaal anoo ku jira ma qof la halmaamaa tahay wey allah subxaana wa tacaala xaaladda xun markaa maraysa markay mushkilada ku hayso markuu faqriga ku hayo markii noocan maa xaalad aad xanuunsan tahay markii aad iyo aad u mashquulsan tahay markii overtimekaagu aad iyo aad u badan yahay markii noocan maa bashaakilku u badan yahay xuska ilahina ka tegtid ma xitaa salaada salaatulkhoof baa la jiday iyadoo dagaal lagu jiro cadowga ku eryanaya ha ka tegin baa lagu yidhi waxyaabaha looga badbaadi kara waxaa ka mid a shaydaanka dikru llahi jala wacala iyo alisticaada billahi min ashaytaan arajim xadiidkii hadda wuxuu ahaa inii la acrifu kalimatan low qaalaha la dahaba canhu maa yajid hadda waxaan ogahay kelimad hadduu ku dhawaaqi lahaa waxa uu dareemayo o dhan marka way ka baabi'i lahaayeen waana muhiimadeeda leed waxay kaloo haddana yidhahdeen waxaa looga badbaadaa suxbat asaalixiin dadka wanaagsan inaad raasatid maxaa yeelay xadiidkii wuxuu ahaa alwaaxidu shayطaan nin keligii socda waa shayطaan oo musaafira wاlاثnaani shayطaanaan laba haddaad aragtidna waa shayaطiin wاrakbu waa tanuu leeyahay wa aلثalaaثaةu rag buu yidhi saddex hadday wada socdaanna gruub musaafiriina lagu magacaabi karaa wayad ullahi maca jamaca ilahay gacantiisana waxa ay la jirtaa qolyaha meel ku urursan oo wada socda waman shada shada fi الnaar qofkii gaar u baxana naartuu ku fogaaday inamaa yaأkulu الذi'bu alqaasiyata min alghanam iyaduna waxay abaarataa un keliya ariga kiisa fogo xaynta ka fogaaday iyo meeshay ku urursan tahay iyada in la raadsado dadka ahlu khayrkaana daruuriyaadka ka mid taha wailaa huna wabillahi الtawfiiq